kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad joogtid halkani waa warbaahinta xog bixinta wararka fadlan hadaad ka mid tahay kumanaankan qun ee qof inagu xiran saaxiibayaal muuqaalkeena Lexer suusi gaadho dad badan oo Soomaali hadaad nagu cusubtay nagu soo bir oo taabo calaamada subscribe gambaleekana ku dhufo si kugu soo dhacan muuqaalada iyo barnaamijyada ugu dambeeya halkan soo gelino hadaba tani waa Ladan Maxamuud Aadan oo ahayd gabadh Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Qardho taasoo dhibaatanaysaneed kadib markii aan halkan ku baahnay warbixinteeda bilo ka hor ayaa waxa dhammaan ummadda Soomaaliyeed u gargaareen walaasheen Ladan Maxamuud Aadan taasoo ay gaarsiiyeen lacagin aad u tiro badan hadaba Ladan Maxamuud Aadan ayuu calafkiis kugu daray mid ka mid ah dhalinyartii magaalada joogay hadaba sidoo kale wiilkan oo ahaa mid ay aad isku jeclaayeen kadibna halkaas calafkooda ku dhamaaday ayaa waxa soo kala dhex galay dagaal aad u culus kadib markii uu lacagtii haysatay ka dhacay hadaba sidoo kale wuxuu ka karay uur uu yeelay kadib markii ay isaroosteen halkaas ka bacdi hadaba ninkan ayaa ah ninkii Ladan Maxamuud Aadan ka dhacay lacagta si aad wax badan uga ogaato xaqiiqada dhabta ah jirta iyo sidoo kale muuqaalada sir oo ay soo duubtay baraha bulshada lagu baafiyay ku soo bir janaalkeena xog bixinta wararka kana mid noqon kumanaankan kun ee qof ee sida joogtada noogu xiran mar walba sidoo kale waxaan isla eegi doonaa muuqaalka Ladan Maxamuud Aadan ay soo duubtay ee waa kan ku soo dhawaada saaxiibayaal كنت أشيرا كنت نقدس كمان حشو إن شاء الله حردينيا أنكر رجينيا صومالي وين قرب استاج يدعو إن شاء الله أنا ما أنت حور مباهني لكن حاربا ما أنت قرب استاج إنسان حقي يكونها المهانة إلهي عسيي إلهي من بطنا كانوا كلوكين أنا يسألنا إلهي أنا كلا قصارو الدنيا أحنا أنا عارفين دونا وميسر نغط تعالى كل أولان لونتا waxaan ku leeyahay macade walaalkay qaali soo dhawow waqti ay mustay markoowaad iyo mar labaad waan kaaga mahadcelinayaa halkaas street macade aad kaaga mahadcelinayaa oo wax dacwada marka gudbisay waan ka gudbiyay maxay tahay arinta ladan laga dhacay oo aad ka cadaysaa waxay tahay arinta aniga dhacay oo aan ka caday oo maanta mar labaad baraha bulshada u sheegay horta wuxuu noqday baraha bulshada saameynta ugu badan baan ku yeeshay ayba ku yeeshay aflagaada ku yeeshay hasa ahad qofna wuxuu ahayn qof walba oo nolosheeda ku soo biira anigu waxaan ku leeyahay laakiin aniga ima uu dhacay ama iga faanaya wadiifa ay waxa dhacday mid Soomaaliyeed oo walaalkay maanta dhigto walaalkay bal wuxuu ugu noqday hoostayda cunay aan dareemin oo kayga dhigtay oo waxaan ka dhigtay garab iyo gaashaan iyo naxariis meel baa u dhigtay waxa ku wada dhammaan xamsa lacagta ay u shaqeeyo iyo anigu waxa dhacday inuu isku wada qoray isku wada qoray marka masaajid ingiriiska taa waxaas ka dib aan isku sinay calaf isku yeelanay way soo doonay reerkeenu siiyeen markuu dadku waxa gaaray habeenadanada kamana isku raacsan dumarku wada aragto wax qadaadna sinasi laakiin waxa dhacday inaan meel bandhigoogeed uu soo kula joogo aniga aan joogay aan ka qayb galay kadib uu yiri gabar gabdhii kamid ay tiri waa hebel xaaskiisii saastarteed lixkuuta qaatay maasha Allah oo mahadcelin لأجل كلمة ذلك بقولتها أقول جيبي وكنت تمي سكرية عن تمعدل واحد عوض وحقيقة والله حي شومالي وحقيقة والله مانتا وحقا عصاني رمض الشومالي مانتا إني قرب يوسي إنسان عدالة وغير الحال مانتا وحن كواميل إخوانا إني قرب يوسيني وفل بوحي إليه شلع داسية marka maanta waxaan ka codsanayaa markoowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad walaalaha Soomaaliyeed ee muslimiinta ah iyadoo ay bil Ramadaan tahay in layla raadiyo xaqiiqa waayo qof xaq ka maqan yahay baahay qof waxaan ahay la daaway waxaan qof qalbiga laga jabiyay qalbigu waa muraayad dadka waydi marka runtii dareen iyo shucuurtooda maanta kama hadli karo secret macade marka waxaan rajaynayaa kolba inaan cadaalad helo in kaas Ilaahay Rabbi subhanahu wa ta'ala hawaan aaminay oo khiyaano mawduugo Ilaahay inuu ka soo ifsaar insha Allah waa rajaynayaa ninkaan jacayl xidin ku soo noqdo isagoo dhibaatay geystay soo khiyaamay soo yaacay soo aflag soo yaacay ama imaaga ama dhibaato kale ay geystay oo aan ogahay wuxuu iiga tagay oo aan ogahay inuu iga dheeraaday bar haddana ilaa xad maanta ninkayga jeclahay waayo waxa weeye ninkayga noloshayda kan ku aaminay kan shar Ilaahay dadku aaminay kan shar aan wax cadeyn aan ka qaadan maanta waan jeclaanahay ninkayga noloshayda hantideeda inay soo noqoto laakiin hantideeda waa waayay ninkayga waa waayay waxa noqday qof lagu dangaaray marada hadii uu soo waa la iska bixiya dabcan maradii falaxta dabcan waxa noqday marada soo isagana marada nadiif u xirtay
maanta waxay igu taageeraynayaa waxa weeye muusan arag garab aniga ila dhashay oo garab taagan ama qof garab taagan shalay markii la soo doonayay waa la doonayay oo aabahay la weydiisanay laakiin maanta waxaan dhihi karaa danteeda lahaa waa laga gaaray nolol iyo maanta mustaqbal hadii laga leeyahayna ilaa iyo maanta si kaliya kula soo xiriiray ilaa iyo maanta dhibkaygu waa jiray cid codsiga aqbashay ma jirto waxaa dhacday fikradii macdee saddex habeen waxay ka soo wareegtay hotel restaurant beertrees oo ku kulanay aniga iyo saniyadii anigoo markaa raadinay wado wanaagsan oo wanaag ah ku heli karo madaxay ma jaahan qabto xawala lacag insaan gaar ahaan wuxuu diiday waan la khiyaantay baadigeesta laakiin ilaahay baa daalacnaya awligu ma geysan luguyo ma geysan mar walba waan jeclaa ninkii noloshay laakiin isaga waxa uu yeeshay xaafid ah seema waxa ku falaysan naagtan baraha bulshada ku jirta kawda in laga badan xataa qoyskiisa way iga soo gaartay waan dhihi karaa maanta kada kale marka waxaan leeyahay intaasaan kusoo gabagabeynayaa Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa walaalaha muslimiinta shalay ay garab taagan maanta ay u garab istaagtaan saan xaqayga u helaa waxaan ka codsanayaa madaxda Puntland iyo shacabkeeda inay garab igu siiyaan xaqayga oo helo inta maanta waxaan ahay qof u leh uurka xataa wuxuu ma dhalin hooyis xataa waxay tiri wiilkayga wax u rumeeyay aniga uurkayga ana cidna ku bariimaayo duulahay maanta joog ay kan alxamdulillah hadduu samaanta ilaahay iyo qadarin adduunka inuu ilaahay rabbil caalamiin laakiin waxaan codsanayaa garab istaagina in ninkaas kolleyba dee xoolaha shalay ninkan laga soo ma ahayn xoolaha anigu aan soo shaqaystay wixii ii soo haray aan dhakhtarka aaday aan ganacsi ku samaystay ganacsigiina maanta saas u noqday marka walaalayaal waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol waxaan aad ugu mahadcelinayaa marka hore iyo mar labaad wariyaasha kala sakriyaan sidreeti macaadey cali aadan mu'min oo shalay tusay codkayga soo baahiyay maantana jecel inay codkayga baahiyaan maantana jecel inaan garab helaya gaashaan wuxuu noqday baraha bulshada ama social media waxay noqotay caawiyaha masaakiinta marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaan helo dad caawiya